kulanto wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada aad ku daawan doontaan Weheliya TV waxa kamid ah saraakiil sare oo ka socota dalka Itoobiya oo maanta Muqdisho imaanaya waa maxay ujeedka safarkooda Cabdulle Muudey kuwa doonaya in ay bixiyaan ha ogaadaan way la baxayaan shaqaqada magaalada Beledweyne ka dhacday oo lagu eedeeyay Waare Guudlaawe Somaliland oo soo bandhigtay tirada ajaanibta ku sugan Somaliland ee la diiwaangeliyay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal Weheliya TV hadaad ku cusubta waxa saartaa subscribe si aad u heshid warar xaqiiqo iyo xogtii ugu dambeysay Soomaaliya waxa maanta la filayaa in magaalada Muqdisho ay soo gaaraan saraakiil sare oo ka socota taliska ciidanka Itoobiya saraakiishan ayaa waxa hogaaminaya madaxa howlgalka ciidanka Itoobiya waxa safarkan soo abaabulay taliyaha ciidanka dalka Itoobiya safarkan oo aan hore loo shaacin ayaa waxa uu daba socdaa safarkii uu farmaajo ku tagay magaalada Addis Ababa horaantii bishaan kulankii uu la soo yeeshay ra'iisul dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa looga hadli doonaa in loo soo diro Soomaaliya ciidan qaas ah oo fuliya howlgallada ugu gaarka ah ra'iisul khayray madaxweynaha Soomaaliya farmaajo ayaa in muddo ku haminayay inuu helo ciidan u qabta deegaanada Dhuusamareeb iyo Kismaayo si uu halkaasi u qabto doorashooyin uu ku soo caleemo saarto hoggaanka isaga ka daba qaato saraakiishan Itoobiyaanka ayaa jiifan doona guri ku yaala safaaradda Itoobiya dhexdeeda taas oo u sameynaysa inay si fudud isla markaana qarsoodi u arkaan madaxweyne farmaajo labadii isbuuc ee la soo dhaafay waxa magaalada Muqdisho ka socday olole mooshin ka dhana gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdulle Muudey ololahan ayaa waxa wada xildhibaano saaxiibo dhow la ah madaxweyne farmaajo iyo Xasan Cali Khayre sida la sheegay waxaana mooshinkaas gadaal ka riixaya Faad Yaasiin oo isku heeb yihiin gudoomiye Muudey oo la hadlay saaxiibadiisa ku dhow ayaa wuxuu ku dhaartay in isaga kaliya uusan bixi doonin laakiin madaxda dawladda ay la baxi doonaan kuwa doonaya in ay bixiyaan ha ogaadeen way la baxayaan kuwa ay doonaya in ay bixiyaan ha ogaadeen way la baxayaan taas oo macnaheedu waxa Khayri Faad igama harayaan Cabdulle Muudey ayaa shakhsi aan xishoon ama aan qadarin badan ku lahayn baarlamaanka dhexdiisa baarlamaanka Soomaaliya ayuu u arkaa goob uu ku ganacsado lacag badan oo ka sameeyay farmaajo la hadlayay saaxiibadiisa ayaan qarsan nacaybka uu qaba Cabdulle Muudey mid ka mid ah dadka la hadlay ayaa mool u sheegay in farmaajo ay ka goontay inuu ka taqluso Cabdulle Muudey waxa uu yiri farmaajo ayaa inoo sheegay in sharci kasta oo ay dawladda geyso baarlamaanka uu Cabdulle Muudey xujo ugu dhigo in lacag la siiyo wuxuu intaasi ku daray sharciga shidaalka waxa la siiyay lacag badan iyada oo ay dawladda hayso dhaqaale xumi dhanka kale Faad Yaasiin ayaa bilaabay inuu iskaga baryeelo colaadda ka dhanka gudoomiye Muudey isagoo hadda bilaabay inuu u sheego Muudey inuusan wax luga ku lahayn mooshinka laga wado Muudey sida mool loo xaqiijay ilaa iyo hadda in ka badan 100 xildhibaan ayaa saxiixday mooshinka ka dhanka Cabdulle Muudey golaha badbaadada Hirshabeelle ayaa ku eedeeyay in mas'uuliyadda siyaasadeed ee shaqaqada Beledweyne ay dusha u ridinayaan madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo ku-xigeenkiisa Cali Guudlaawe golaha ayaa soo dhaweeyay faragelinta dawladda dhexe iyo doorka odayaasha dhaqanka ugaas Xasan ugaas Khaliif ciidamada qalabka sida iyo amisom ay ka qaateen xasilinta golaha ayaa ugu baaqay duubabka xildhibaanada Hirshabeelle iyo dawladda dhexe Soomaaliya in uu xal ku jiro madaxweyne Waare iyo Cali Guudlaawe xilka iskaga tagaan ama laga qaado bayaanka ayaa u qornaa sidaan golaha badbaadada Hirshabeelle ayaa bayaankan ka soo saaray shaqaqadaasi uu ku dhintay sargaal sare oo ka tirsan booliiska Soomaaliya iyo ku-xigeenkiisa Somaliland oo soo bandhigtay tirada ajaanibta ku sugan Somaliland ee la diiwaangeliyay Marwe Hindi Jaamac Xirsi Gooni oo ah wasiirka wasaaradda shaqangelinta ee arrimaha bulshada iyo qoyska Somaliland ayaa sheegtay in ay sanadkan 2018 ay diiwaangeliyeen ajaanib ka badan 15,000 oo qof oo ku sugan Somaliland wasiirka oo warbixin siisay shirka golaha wasiirada Somaliland ee khamiislaha ayaa sheegtay in wasaaraddu ay rusqad ogolaashaha shaqo ay siisay in ka badan 212
oo ka mid ah ajaanibta ku sugan Somaliland. Wasiirka waxay xustay in shaqaalaha ruqsadda shaqo la siiyay lagu maarmi waayay xirfadooda shaqo oo ay tilmaantay inaysan qaban karin muwaadiniinta Somaliland. gabagabadii wasiirka waxay golaha hor keentay qabyo qoraalkii xeerka xuquuqda carruurta oo golaha loo gudbiyay si kala fadhiyada dambe lagu meel mariyo xeerkaasi. guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaya daawadayaal warkii aad ka daawanayseen Weheliya TV. intaan warkaan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.